waxaan rabaa qof walba oo mas-uul ah waxaan rabaa qisadan inuu dhegaysto, inuu dhuuxo, inuu ku soo celceliyo, bal noloshiisa inuu geliyo oo uu weligii inay la socoto uu xusuusnaado. u kaalay faxalkaa u kaalay ya geesiga ah, botalka ah, ragga ah, cumar alfaaruq, cumar ibn alkhataab radia allahu canhu. walaalayaal cumar ma seexan jirin, oo ogsoontihiin idaylkiin ma seexdo. dadka isagaa soo jeedaya, dadka inay seexdaan u usoo jeedayaan. isagaa gaajoonaya, wuxuu u gaajoonayaa dadka inay dhergaan. isagaa daalaya, dadka in ay nastaan. isagaa dhiboonaya, dadka inay raaxaystaan. cumar habeenkii ma ladi jirin, wuu soo bixi jiray, dadka axwaashoodu fiirin jiray. waa keligii banaanku intuu usoo baxa ayuu eegayaa dadkii, wax ooynaya, wax la dulmaaya, wax la dhacaya, wax maaragtaaye daciif ah, wax taahaya, wax maalinba wuxuu soo kaxaystay, habeenba aslam mawlihiisi ayuu soo kaxaystay. isagoo magaaladii axwaashii dadkii eegaya ayaa wuxuu arkayaa dab guri ka shidan. waa wakti dambe oo in la seexdo, ummadoo dhan way seexatay. war waa maxay dabkan? waxaa laga yaabaa qof musaafir oo ka yimid duurka ka yimid baadiye oo magaalada rabo oo ishayadii ka go'day oo inuu xaaladii ogaaduu doonaya. allaale markuu u tegay dabkii ayaa wuxuu u tegay islaan iyo ilmaheedii 3 meelaha oo agooma ah aan aabba lahayn. ilmihii baa ooynaya. cumar wuu soo ag fariistay. ma taqaana gabadha cumar? markaasaa wuxuu yihi maxay u oynayaan ilmaha? kasay leedahay way gaajaysan yihiin. waa maxay waxa dabka kuu saaran? dabkaa digsi saaran biyaa ku jiro way walaaqaysaa. waa maxay wax dabka kuu saaran? waxay tiri waa biyo. maxaad u walaaqaysaa biyaha? waxaan ku shubaanan haysanin, daqiiqiyaa naga dhammaaday, waxba ma haysano. oo ilmaha marka maxaa u karinaysaa? ilmaha waxaan u karinaya ma laha. sidaanaan ku sasabayaa. hadalka aada u dhegeysta walaalayaal, aada u dhegeysta hadalkaa. dadka talaajadaha u buuxaanow, 3-4 talaajo guryaha ku haystow, jawaanada raashinka uga buuxow, aada u dhegeysta. dadka dhaqankoodu yahay israafka, mubadiriinta ah, ya maaragtay nicmada ilaahay ku ciyaarayo aanan ku shukrinaynin. raashinka la qubayo, la daadinayo, lasoo gadayo, qashinka lagu darayo, dariskiina uu gaajaysan yahay. xaaladda muslimiinta ay soo mareen oo ay ku noolaayeen eega. ilmaha way gaajay la oynayaan. hooyada dabka waxa ay ku aamusiinaysaa waa biyo ay kululaynayso, si ilmaha ay u dhahaan hooyo waxbay karinaysaa. hooyo wuu karaayaa, hooyo aamusa, wuu karaayaa, hooyo haddaan ka qaadaya. hooyada way ogtahay inay been sheegaysa, laakiin maxay samaysaa? uurkay ka gubanaysaa. hooyada uurkay ka gubanaysaa, way ooyeysaa. maxaa wacay? dadkan waa dadkii qurato caynkeeda ahaa, waa dadkii laabteeda ku weynaa oo maanta oynaay. waxay kaloo qabato oo ay samaysana ma laha. maxay samaysaa? biyahaasay ku ohisiinaysa, ku aamusiinaysaa. kasay leedahay biyaha waxaan rabaa in ay seexdaan oo ay sidaa intee habeen ayay sidaa ku seexdeen ilmaha ayaga ah. dad badana raashinku maanta daadinaya. cumar markaasaa wuxuu leeyahay, naagta gabadha weli waxay leedahay allah fi cumar, ashku cumara ila allah. ilaahay un baan ku daynayaa cumar ilaahay baan ku daynayaa. cumar ilaahay ayaan uga sheeganayaa. cumar dhegihiisa waxaa ku dhacaya, gantaalahana ku dhacaya ay ku tuurayso. cumar markaasuu naxaya, jirkiisii o dhan markaasuu boodaya. wuxuu leeyahay famaa danbu cumar. cumar muxuu sameeyey? cumar damiirkiisaa qoyan. cumar muxuu sameeyey? maxaad ilaahay ugu dacweynaysaa? allah intee hooya maanta dhahaysa allah fi fulan. intee agooma aha dhahaya allah fi fulan. intee dulman oo madluumiin ah yaa oo dhulka jiifoo la dhacay oo dhahaya allah fi fulan. yaa ilaahay ayaa ku dacweynaynaa dadkan. war intee ruuxaa maanta ilaahay inoo daysay
intee ruux awey damiirkii awey damiirkii intee ruuxaad dhahaysa mas-uuliyiinta ilaahaan ku daynay hebel ilaahaan ku daynay hebel ilaahaan ku daynay war ilaahay muxuu noola yar yahay ilaahay miyaa ilaahay muxuu ilaahay maxaan u weynayn la'nahay ilaahay oo nalagu daaya miyaa yar miyaa yar ya war maxaan u cabsan la'nahay famaa dembu cumar yaa amat allah addoonta ilaahayay waa maxay dembiga cumar waa maxay ha kelmadda ay dhahayso fiiri ya oo ay xusuusinayso amiiru lmu'miniin waxay leedahay ayali amranaa wayagfalu cana laa ilaaha ila allah ayali amranaa ayali amranaa wayagfalu cana ya allah arrinkeyniina ma isaga madax ka noqonaya ya ma noo talinaya manana halmaamaya ya intuu noo taliyo ya intuu maaragtay kursiga noogu fariisto madaxweyne noo noqdo wasiir noo noqdo ra-iisul wasaare noo noqdo miyuu haddanana halmaamaya intuu ballan naga qaado miyuu haddana halmaamaya laa ilaaha ila allah cumar muxuu samaynaya markaasuu ordayaa cumar naagta ma taqaana weli cumar laakiin wuu ordayaa cumar radia allahu canhu aslan buu hoosta ka dharbaaxa uu leeyahy nakeen 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 musiiba taagan sidan caawa haddaan ku dhimano cadaabu ilaahayna geynaya wallahi ilaahay wuuna cadaabaya xaqiiqatan nakeen markaasuu u ordayaa intuu aadayaa baytulmaalkiu tagayaa markaasuu daqiiqii iyo wixii u baahneed oo raashinuu soo qaadaya cumar radia allahu canhu markaasuu leeyahay soo qaad aslan baa marka wuxuu leeyahay isaar dhabarka wuu leeyahay maya ma adaa iga qaadaya dembigayga ataxmilu awsaari canii yawma alqiyaama isaar dhabarka isaar yaa way wax dhabarka loo saaraayo waa cumar ibn alkhadaab waa amiiru lmu'miniin khaliifatu lmuslimiin weeyaan daqiiqii iyo jawaankii iyo raashinkii xamaali weeyaan cumar fiiri isaaruu leeyahay dhabarka seed u qaadaysaa aslamow adiga dabcan uu isaga qaaday ahayd annaga ra'yigeena iyo aragtideena laakiin wuxuu leeyahay isaar isaar dhabarka isaar ataxmilu awsaari canii yawma alqiyaamata ya aslam maalinka qiyaamaha dembigeyga maadaa iga qaadaya caawo wuxuu aaminsan yahay cumar inuu galay dembi gabadha miskiinta iyo agoomaheeda in ay maanta biyo kulul in ilmihii lagu seexiyo cumar baytulmaalkii raashin yaalla cumar inuu ogaan waayo masaakiinta cumar inuu gaafil ka noqdo oo uu halmaamo raciyadiisii dembi weyn ayuu u arkayaa cumar radia allahu canhu isaaruu leeyahay dhabarka dhabarkuu markiiba u saaraya cumar baa jawaankii soo qaadaya cumar baa dhididaya cumar baa daalaya culayska gabadhii agteedu kusoo ridaya ilmihii oo seexday dabkiioo damay markaasuu dabkii saaraya naagtu gabadhi waa yaaban tahay dabkiioo shidaya cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu markaasuu babinaya babis ma lehe wuu afuufaya garkii cumar baa dambaskii iyo qiiqii ka buuxsamaya war waa kuma kan dabka afuufaya waa amiiru lmu'miniin waxaan la hadlaya waa madaxdii ha ogaadaana waa mas-uuliyiinteena shacabka masaakiinta ah ee dhiban ee dayaceed ee maaragtay dacdaran dadka hor jooga weeyaan dadka aan la hadlayo ee aan u sheegaya qisadan cumar ha ku baraarugaana waxaa dabka afuufaya oo gabadhan iyo saddexdeeda agoomaha ah dabka u shidaya waa amiiru lmu'miniin waa qofka uu dhahayo xabiibka salى اllahu عalayhi wasalam low kana bacdii nabiyun lakana cumar dadaa shay nebi ma jiro anaa laygu khatimay ambiyada laakiin haddii nebi gadaashay uu soo bixi lahaa lasoo saari lahaa cumar baa laga dhigi lahaa waxaana looga dhigin ba akhlaaqda ambiyada fiiriya akhlaaqda ummaddan awalkeedii eega cumar baa dabkii babinaya oo dabkii qiiqii iyo ay ku baxayaan cumar markiiba daqiiqii soo qaadaya dabkiiba wuxuu ku ridaya biyihii markaasuu ugaalidii soortii daqiiqii mishaaridii wixiiba u karinaya gabadha ilmaha waa kuwana way sugayaan waa la kicinayaa markaasuu uga dejinaya markay bislaato cumar oo daqiiqii iyo dambaskii iyo shiirkii uu ku baxay
gabadha waa yaaban tahay. maxaa farxad ah gabadha markaa iyadaa uurkeeda galaaya. maanta haddii qof ayan aqoonin uu intuu wax usoo qaaday haddana uu u karinayo u bislaynaayo, raashinkii u guraayaa cumar. markaasay leedahay khayr allah ku siiye anaa sii dhamaystiraya mayuu leeyahay ukaadi. wuxuu sugayaa cumar intuu raashinka ka qaboobo, markuu qaboobo anaa siinaayo ee mayuu leeyahay ukaadi. ilmihii saddexda ahaa buu soo fariisiinayaa, markaasuu siinaya afka u gelgelinayaa cumar. ilmihii baa dhergaaya. aslam wuxuu leeyahay cumarow ina keen, marka cumar u naxaya cumar ina keen isaguu leeyahay sidaan ugu imid iyagoo ooynaaya ayaan rabaa inaan uga tago iyagoo farxaaya oo qoslaaya. alaale markay dhergaan ayay ilmihii qosol iyo farxad iyo ciyaar iyo reynreyn. allahu akbar. weli ma taqaane ogow, ma garanaysa gabadhan. intaa waxay niyadda ka leedahay wallaahi adigaa uga roon, adigaa uga habboonaa cumar, khilaafada adigaa uga habboonaa. laakiin waa cumar weeyaan, cumar ninkan waa cumar. allahu akbar. ilmaha suu farxad u gelinaya eeg. wuxuu yihi berito hadduu ilaahay yihaahda meesha madaxda soo ma taqaanid, halka oo baytulmaalka soo ma taqaanid, macnaha halka wadanka laga xukumo soo ma taqaanid, imow buu yihi aad aragtid ma aragtaay amiiru lmuminiin. raggan caafimaadka waxay ku heleen waa tan, waa istiqaamada weeyaan. subaxii meeshiisii u fariistay kursigiisii, gabadhiyo socoto waa soo daaya. waxay aragtay ninkooda kursiga ku fadhiyo ya amiir almuminiin, ya amiir almuminiin la dhahayo iyadoo yaaban. markaasay iska oynaysaa, ma adiga soo ninka xalay maahay? markaasuu leeyahay ukaadi, yulux baa kuu dhiman. warqaduu soo qaadaya cahdii, markaasuu leeyahy ii saxiixuu leeyahay, ii saxiix inaan xaqaadii adiga gutay. wuu baqaayaa cumar, isagoo intaa yeelay ayuu baqayaa. muxuu u baqaayaa? aakhiruu ka baqaayaa. muxuu ka baqayaa? maalmihii ay gaajaysnaayeen, intii hooyada biyo ay u karkarinaysay oo beenbeen ay ku sasabaysay o ku seexinaysay ka baqaayaa. maanta kadib horta waa la kafaalo qaadaya oo bil buu u qorayaa, laakiin intii hore ayuu ka baqaaya. ii qor uu leeyahay, ya inaadan waxba ii qabin ii qor, saxiixaasaan rabaa inaan ku dhinto oo laygu aaso oo aan ilaahay hortii maalinka markuu iqabsado war gabadhii iyo agoomaheeda marka laidhaha inaan dhaho waa kaasa iyadaa way icafisay, alla way icafisay gabadha. allahu akbar. haulaai rijaal ya ikhwaani. ya maxaa laleeyahay marka waxaa la dhahayaa raggaa waktigooda muxuu ku fiicnaa? maye wallahi rasuulkaa noolaa waagaas, ko maye waxyi baa soo degaayey, maye sheekh waxa waaye dadkan iyagaa dad ahaa, waxa way diintay si dhaba u qaateen, kitaabkay si dhaba u qaateen, sunnaday si dhaba u qaateen, way ku dhaqmaayeen. meesha annaga qur-aanka taa xifdino aan ku subcinayn oo aan maalinkii ama labadii maalinba aan 5 jeer dhamaynayno qur-aanka. dadkaas qur-aanka waxay u arkayeen hanuunkan iyo nuurkan lasoo dejiyey, waxay u arkayeen dhaqan ayay u arkaayeen, akhlaaq ayay u arkaayeen. uurkooday geliyeen, uurkooda afka ma ayna sheegi jirin. cumar ibn khataab radi allahu canhu sidaasuu u farxad gelin jiray dadka.